waxay ahayd sheeko aad u qurux badan wixii xali markaasi ka dhacay garoonka Etihad ee kooxda kubadda cagta Manchester City ay ku ciyaarto iyadoo waliba lagu ciyaaray halkaas kulanka lugta hore ee wareegga sidedamaadka tartanka Champions League labada kooxood ee loo saadaalinayo inay markaasi ku guuleysan karaan horyaal anraada tartanka xisaab badan Champions League ayaa isqabtay habeenkii xalay waxaana markaasi ka dhacday sheeko aad u xiiso badan oo idina ay fileen in halka ay ka dhici doonto Manchester City ayaa 3 gool iyo waxba ku qabatay kooxda awoodda isbadaysay ee Bayern Munich oo sanadihii la soo dhaafay aan markaasi loo baabacdhigi karin cid markaasi ka hortimaada aysan jirin Manchester City waxay ku soo gashay kulankaas duulaan xoogan iyadoo waliba ay markaasi sameynaysay taxaddar xoogan iyo waliba weerar joogto ah taasoo u suurta gashay kooxdu in ay natiijo fiican halkaas kala laabato Manchester City waxa la dhihi karaa waxay u gudbi kartaa wareegga xiga ee afardhamaadka maadaama 3 gool ay ku qabatay walow kubadda cagta wax walba ay ka dhici karaan isla markaana taariikho hore markaasi ay sheegayaan in ay soo laaban karto kooxda Bayern Munich laakiin haddana uma badna rajadu hadda waxay u badan tahay in kooxda kubadda cagta Manchester City ay hadda markaasi tahay musharaxa ugu weyn labadan kooxood markaasi ay u gudbi kara wareegga xiga afardhamaadka iyadoo 3 gool markaasi ku soo adkaatay kulanka lugta hore Allianz ay isgeyn doonta la arki doona natiijada halkaas waxa ay markaasi noqoto laakiin hadda Manchester City ayaa ah kooxda ugu cadcad ee u gudbi karta wareegga afardhamaadka ee tartanka xisaab badan ee UEFA Champions League waxa sidoo kale wada ciyaaray kooxaha markaasi Benfica iyo Inter Milan Inter ayaa 2 gool ku adkaatay iyadoo waliba Inter iyo Man City haday soo gudbaanna ay isku aadi doonaan wareegga afardhamaadka waxa sidoo kale la ciyaari doonaa kulamo kale oo aad u xiiso badan oo tartanka Champions League wareeggiisa sidedamaadka ah Real Madrid ayaa garoonkeeda Santiago Bernabeu waxay ku soo dhaweyn doontaa kooxda xaaladda adag ku jirta jahwareerka uu haysto ee Chelsea waxayna markaasi ay wada qaadan doonaan kulanka lugta hore wareegga sidedamaadka Chelsea waxa ay taageerayaasheedu ku doodayaan marka aynu markaa tababaro burino oo horyaalku aan markaa form fiican aan ku jirin waxaan ku guuleysanaa inta badan oo horena ay u dhacday tartanka Champions League la arki doonee rajada ay qabaan iyo sida ay wax markaasi ay u arkaan hadii ay u suurtagali karto laakiin caawa waxay marayaan imtixaan adag iyagoo wajahaya kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo Carlo Ancelotti uu hogaaminayo garoonka Santiago Bernabeu iyo kulankaas ka dhici doona waxaana markaasi la baasan doona saacada geeska Afrika markay tahay caawa 4 saac habeenimo sidoo kale kulanka kala xiisaha badan ee la wada sugay wuxuu noqonayaa kulanka Napoli oo sanadkan laga yaaban yahay waxay dhigaysaa wacdara cajiib ah waa koox markaasi la dhihi karo shanta horyaal ugu waaweyn ee qaaradda Yurub horyaalka Serie A waa markaasi isku dhamaaday sababtoo ah waxay ku hogaaminaysaa dhibco fara badan Napoli ayaana caaw waxay markaasi ay wajahaysaa kooxda AC Milan oo isku dal ay ka soo wada jeedaan laakiin ogsoono Napoli waa la tijaabistay ama tijaabo ayaa la marsiiyay horyaalka Serie A dalka Talyaaniga kulankii ugu dambeeyay iswajaheen kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa 4 gool lagu qabtay oo AC Milan way si tijaabsatay kooxda Napoli laakiin caawa waa Champions League Napoli form fiican ay ku jirtaa walow markaas xidiga muhiim ay ka maqayn laakiin waa kulan weyn oo markaas daawasho mudan caawa ay markaas iyagana isqaban doonaan 4 saac ayuu kulankaas baasmi doonaa iyadoo waliba kooxda kubadda cagta AC Milan garoonkeedu San Siro markaa lagu ciyaari doono Napoli iyo AC Milan wareegan iyo Real Madrid iyo Chelsea kuwii markaas soo gudba ayaa isku qaban doona wareegga afardhamaadka la arki doono sida xaaladdu ay noqoto tababar Pep Guardiola wuxuu ka hadlay xaaladda Kevin De Bruyne markii uu bedelay habeenkii xalay waxa markaas dhacday in taageerayaasha xoogaa walwal ay dareemaan iyagoo markaasi ka walwalsanaa maadaama ciyaaryahanka dhaawac ahaan markaasi kulanka intuu ku jiro la arkay isagoo boodada haysta in dhaawac loo saaray kulamada soo aadanay horyaalka Premier League iyo Champions League kulanka lugta labaad ay walwal markaasi ka muujiyeen laakiin kulanka kadib wuxuu u dejiyay laabta waxa uu sheegay in qaab tactica uu bedelay isla markaana kulanka uu ahaa mid markaasi uu ka faa'iideysanayay xidiga kala neeftooda iyo waliba in markaas loo baahnaa isbedel kulanka laga sameeyo ninkii Erling Haaland ahaa wuxuu sameeyay taariikho ama rikoor habeenkii xalay horta wuxuu soo gabagabeeyay rikoorkii markaasi abaarti ka haysatay in wax gool ah uusan ka dhalin kooxda kubadda cagta Bayern Munich iyo inuusan gool ka gaarin isaga oo Manchester City ka tirsan gool ayuu gaaray goolna uu ka dhaliyay habeenkii xalay sidoo kale waxa markaasi uu noqonayaa xidig markaasi bandhigiisa cajiibka iska sii wata iyadoo Erling Haaland
markaas sanadkan ay u muuqato in uu aad hamuun ugu qabo in Manchester City uu kula guuleysto tartanka xisaab badan ee Champions League Arsenal waxay soo gogoysay rajadeedii iyo xiisaha ay u qabtay Marco Asensio iyadoo doonaysay in Odegaard kadib ay soo qaato laakiin hoos ay u dhigtay loolankii iyo waliba xiisii ay u qabtay in Asensio ay soo qaato sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay gabi ahaanba meesha ka saartay Jude Bellingham oo ay markaas aad u doonaysay inay soo qaadato maadaama kooxda Borussia Dortmund ay 100 milyan dul dhigtay ciyaaryahankan iyaduna waxa ay markaas u aragtaa in aanu markaas ka bixi karin 100 milyan xilligan inay markaas dhiibto sidoo kale kooxda Al Nassr ee ka dhisan dalka Saudi Arabia kooxda uu ku biiray Cristiano Ronaldo waxay markaas ay ceerisay tababaraheedu sababtan waxa markaas lagu sheegay in tababaraha ee ciyaartooyda aan markaas xiriir wanaagsan ka dhaxayn sida darteedna ay u go'aansadeen in tababaraha la ceeriyo si markaas bedelkiisa oo la shaqeyn kara ciyaartooyda in markaas ay la soo seexato kooxda kubadda cagta ee Al Nassr